كاسانو كحرسنا دالكيغا واحد دميل أبول روح عند ذلك يدال صار وحش كدر لكي بدع ويدار دمجه سوى حسدوليا لكي ناقدر الله حدث واسع جلال وحلو مش وحي وضلا يا الميدا وضلا أيان وقامين كل رأسنا يلا وشعب عريسان وسحوق إسكاك ساري مامولك جبهة SNM أما هو يضر الشيبة على الشباب وشعب كي دقنا ييلي oo ku dhawaad 30 kilomitir u jirta magaalada Laascaanood sidoo kale waxaad maqli doontaan qaabka SNM hubka looga furtay qaabkii shacabka deegaankaas ku sugnaa ay ula dagaalameen ciidankii halka joogay ee hoostagi jiray maamulka jabhadda SNM horgaladii ku sugnaa deegaankaas xaalkoodu sidoo uu yahay iyo halka ay ku dambeeyeen baadil xoogan calankii SNM oo hoos loo dhigay calankii buluuga ah oo kor loo taagay calankii Khaatume State of Somalia waxaad kaloo barnaamij ku maqli doontaan jamaahiirta dhalinyarada xaqudirirka ah ee magaalada Laascaanood oo fariin adag u soo diray jabhadda SNM dhinaca kale waxaan barnaamij ku maqli doontaan gudoomiyaha baarlamaanka horgal Cabdirasaaq Khaliif oo bahdil xoogan kala kulmay afaafka hore ee guriga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood Garaad Ismaaciil Garaad Jaamac barnaamijyada iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan magacaygu waa Hilaasol waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin wada salaamay idilkiin meel kasta dunida daafeeda ka joogtaan waa walaalkiin Hilaasol oo idin la sidii hore iyo calool adeeg shacabka ku sugan deegaanka Yeyle oo ku dhawaad 30 kilomitir u jirta magaalada Laascaanood ayaa saaka waxay si xoog ah iskaga saareen oo aan bari ahayn maamulkii jabhadda SNM iyo ciidankii halka uu joogay maamulka hoostagi jiray iyagoo isla markaana baabiyay dhammaan wixii astaamaha u ahaa maamulka kana la wareegay dhammaan xarumihii ay ku shaqeyn jireen maamulka kadib waxa ay la wareegeen dhammaan xarumihii waxayna kala wareegeen dhammaan wixii hub iyo saanad ay haysteen halka oo ay ka dhacday kabtay ma aragteen iyo kala carar xoogan halkaas oo ciidankii deegaanka aanu u dhalan ay noqdeen qaar carara iyo qaab hubkii laga furto isla markaana shacabka ku sugan deegaankaas marka ay mulkiyeen ama ay la wareegay gacan ku haynta deegaanka Yeyle waxa ay duubeen fiideo wan la daawada كاسانو كحرسنا دالكيغا واحد دميل أبول روح عند ذلك يدال صار وحش كدر لكي بدع ويدار دمجه سوى حسدوليا لكي ناقدر الله حدث واسع جلال وحلو مش وحي وضلا يا الميدا وضلا أيان وقامين كل رأسنا يلا كل رأسنا waad aragtaan dabaaldega ka dhacaya Yeyle waad aragtaan dadku suu isku raacsan yahay dhulbahantoomida insha Allah dhulbahanta maanta waa uu israacay inta hadhayna waa laga xoreyn doonaa kaliya waxa la sugayaa waxa weeye shirka ka soo baxaya isimada haduu ay buweyne raali ka noqdo waxa dhinaca kale jamaahiirta xaqudirirka ee dhalinyarada ee magaalada Laascaanood dhalinyaradaas oo ah dhalinyaro hubaysan ayaa fariin adag u soo dirtay jabhadda SNM balileera dhageysta annagu maanta midaan taagan hadaan nahay dhalinyarta gobolka Sool Somaliland waxaan u sheegnaa jabhadda argagixisada magaalada iskaga baxo haddii iskaga buuxiyo qor caaradii waxaan kaga bixmayso waad aragtaan waa dhalinyaradii magaalada Laascaanood ama jabaahiirtii xaqudirirka ahayd ee daraawiisheed oo fariintoodii soo gudbinaya waa run waxay ku baxayaan waa xabad caaradii kaliya waxa la sugayaa waa shirkan bilaamaya maalinka bari ah ee isimada ay wada fariisan doonaan insha Allah shirka wixii ka soo baxa ayaana lagu dhaqaaqi doonaa biidmillah sidoo kale barnaamijka waxaan kugu soo gudbin doonaa gudoomiyihii baarlamaanka SNM horgalka lagu magacaabo Cabdirasaaq Khaliif ayaa bahdil xoog ah kala kulmay markii uu tagay guriga
ama hooyga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood garaad Ismaaciil garaad Jaamac bal ila yareeyaga sawirkan waa faafka hore ee guriga garaad Jaamac garaad Ismaaciil abaara saaka barqadii ayuu tagay si uu la kulmay isimada halka jooga balse cid u jawaabto waa uu waayay kaliya hal jawaab baa la siiyay wax isimaha oo kula kulmay haba yaraatee ma jirto mid kale ogow baa la yiri adigu gudoomiye baarlamaan baad u tahay maamulka argagixisada ah anaguna waxaanu nahay isimadii dhulbahante halkana waxaanu fadhinaa masiirka dhulbahante fursadu ma hayno horgal fursadu ma hayno adiga iska daayay madaxweynaha duuno yimaada fursadu ma hayno mid kale la ku sii darso ari kale aad rabtay inaad nagala hadasho waxaad kala hadli kartaa oo kaliya 33 xubnood 33 xubnood ee loo xirsaaray aaya ka talinta gobolada SSC oo waliba loogu sii daray lagama yaabo inaad hesho ama aad la kulanto markiiba hal haleel meesha uga cararay waa bahdil xoogan oo maalin walba soo gaaraya horgal u dhashay deegaanadaas waad ogeedeen in Cali Korrati ku dhacay horgalkan kale gudoomiyaha ku dhacay waa aragtaan Cabdirasaaq wax idin banaan oo dil ahna ma jiraan baa la yiri waxa la sugayo kaliya waa go'aanka isimadaas ay ku dhawaaqi doonaan maalmaha soo socda biidmillaah go'aankaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa midna ogaada ilaa horgalada la iska horleexiyo ilaa horgalada la dilo wallahi dhiigood horta waa xalaal waa jihaad qofka hadduu hantidaada dhulkaaga cirdigaaga maalkaaga uu soo weeraro dhiigiisu waa ku xalaal ka soo weeraray iyo ka garabka siinaya iyo ku garabkiisa ku soo duulayaba inta baadii la cirab tiro wallahi billahi tallahi waa shahiid waana noo xalaal go'aanka soo bixi doonana waad ogaan doontaan wuxuu noqon doonaa ugu horeyn in la sifeeyo horgalada waayo maanta dhulbahanta waa mid taladiisuna waa mid runta aan idin sheegayna waxay tahay dhulbahanto midoobay iyo door iska daayay Soomaaliya cid qaban karta male mar hadii qalcadii taleex la furayna guushi iyo taariikhdii ay dhulbahanta lahaayeen dib bay u soo noolaan doontaa geesinimadii iyo halyeynimadii lagu yaqaanay beesha daraawisheedna dib bay u soo looban doontaa taariikh fara badan oo hor lena waanu qori doonaa taariikh fara badan oo hor lena dib baanu qori doonaa biidmillaah war waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo